kulanti wacan asxaabay kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa kulamadii caawa soo dhamaaday. Messi oo meel ka soo baxay wala ciyaartii weyn caawa kale ayaa la rabaa, laakiin xaalka wali Argentina ma fayooba. hal imtixaan oo weyn ayaa sugaya. Faransiiska oo noqday kooxda koobaad ilaa hadda saxaadirisa koobka adduunka wareegga 16 sii gashaba. Cristiano Ronaldo oo dalab waaliya ayuu helaya oo qiimaan caadi ahayn oo ku qaadanaya sanadkii. sawiradan ayaa Neymar laga soo qaaday dhaawaciisii uu dhawaan kulankii Serbia soo gaaray oo muuqda in dhaawac weyn ninkan uu qabo. iyo waxaan eegi doonaa warar kale soo baxaya. muuqaalkiina intaana bilaabin saaxiibayaal like saara sina share gareeya asxaab badan ay gaadho. haday tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kamaleelkana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay raaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdada. mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ku bilowno kulanka Argentina iyo waliba Mexico. kulankani guul ama geeri ayuu ahaa kulankani Argentina wala guushu waa ka go'an inkastoo halfkii hore aad moodisay waxa laga arkay Argentina mid aanay ku badin karin, laakiin wax weyn ay halfkii dambe bedeshay qaabka ciyaarsi iyo waliba spiritkeedii sida guushu ay uga go'nayd. halfkii dambe moodisay kulankani ay kulan ciyaareen wala ciyaartii weyn maanta kale ayaa loo baahan yahay. waxaan shaki galnaa Messi waa xaraya caawu si xaraya waxaan dhaaba waa kaasi isaga goolka koobaad ay ku soo diireen xulka Argentina isaga ugu furay daqiiqadii 63aad gool miyaa la oran karaa. waxani ayuu Messi uu caan ku yahay in goolasha dilinaanka dusheeda uu dhaliyo. inta badan goolasha uu dhaliyayba dilinaanka gudaheeda ma waxa rikoodha marka laga reebo way koobeen goolasha xariijinta dhexdeedu ka dhig inta badan dusheeda ayuu ninkan caan ku yahay oo kaasi gool uu ka helay kubadda uu ka helay saaxiibkiis Di Maria. runtii kulankan isaguna saacadayn aanu ciyaariyay ayaa Messi uu shabaga ugu shubay. runtii goolkaasina niyadda Argentina waa soo tiiray. haye goolka labaadna waxa ku tuuray Enzo Fernandez oo Messi kulankan gool iyo caawin ayuu la baxay. runtii waa kacsanaa guushu waa ka go'an Argentina. Mexico ma yareysan runtii yadba way dhimatay runtii waxay doonaysay in kulanka ay laftigeedu ay qaadato dhibcaha, laakiin tamarteeda intaas noqoto 2-0 ayaa lagu garaacay American iyagoo bay isfahmay. Argentina runtii waxay muujisay wali inaan laga shakiyi karno wali fursad ay haysato imkana kala sareynta meel fiican baabay soo maraysa. goolka labaad Argentina ay ku xaqiijisteen in ay badiyeen caawa. Enzo Fernandez ayuu dhaliyay kubadana Messi ayuu ka helay daqiiqadii 68aad gool lama oran karin kamba gool mu ahayn gool iyo bad ayuu goolkan ahaa. runtii gool qurux badan ayuu ninkan dhaliyay waana goolkii koobaad ee uu dhalanayo waxaanu ka helay saaxiibkiis Lionel Messi goodka xulkani ayuu ka helay. runtii habeen weyn ayay ahayd Argentina groupkooda isbedel weyn baa ku yimaaday xulkii soo garaacay ee Saudi Arabia. Argentina ayaa sidaasi ku dhaaftay kanta labaad marka fadhida Poland waxay fadhidaa kanta afraad oo iyada groupka hogaaminaysa Argentina. Poland waxay leedahay 4 dhibcood, Argentina 3 bay leedahay, Saudi Arabia 3, Mexico 1. lama oran kara hal ba xari kara. Poland waa bixi kartaa, Argentina Poland waa bixi karaan, xitaa Saudi Arabia iyo Mexico waa bixi karaan oo wali lama kala foga. runtii fursada way kala haystaan Argentina kulankeeda kale barajo iyo waliba goolal barajo waa ku bixi kartaa. Saudi Arabia gool oo ka gaaro Mexico waa ku bixi karaa. Mexico gool ay goolo fara badan kulankan wareegga saddexaad. horta groupkan waa group lagu murmay oo in lagu kala baxaa runtii ay adag tahay. walina laguma kala bixin oo groupkan xul la oran karo uu sii baxay ma jirto, inkastoo xulka kaliya ay la hada sii baxay uu yahay xulka Faransiiska oo caawa guushan uu gaaray ay ugu dhigan tahay in durtaba uu sii xaadiriyay markii labaad buu socda xulkanin oo xiriirah inuu ku guuleysto koob adduunka 2018 oo geed inay ku guuleysteen. laakiin kulankii Denmark iyo Faransiiska ay wada ciyaareen kulan adag ayuu ahaa. runtii Mbappe ayaa 2 gool ku turtay iyo gool hore oo kulankii hore u dhaliyay kulanka Australia. runtii ninkan waxa ku soo biiray laga fikir sare ee hogaaminaya Valencia iyo waliba
Mbappe oo min 3 leh halka xidiga fara badan iyaguna ay wada min 2 ay leeyihiin laakiin kulankii Denmarkna Mbappe ayaa labada gool dhaliyay Christensen oo daqiiqadii 60aad keenay 85 Mbappe ayaa ugu qoyskooy xulka kaliya ee imka sidaas ku baxay ee siixaadii 16 oo Faransiiska 6 dhibcood ay saasi ku haystaa groupkan isaga u sareeya Australia wadana maanta badisay oo Tunisia garaacdiyaduna 3 ay leedahay Denmark iyo waliba Tunisia min gool saddex damo lagu kala bixin mid walba soo bixi kara Denmark waa soo bixi kartaa Australia waa bixi kartaa Tunisia laftigeeda waa bixi karaan runtii lagu kala bixin groupkan markaad eegto Faransiiska waa baxay laakiin kooxda labaad soo baxay laftigeedaba rajo weyn leeyahay saddexdooduba kulankan waxyaabo badan ayaa laga duwan galiyay Messi waxyaabo fara badan ayuu kulankani uga dhignaa caawa ciyaari iyo waliba goolkaasi uu dhaliyay waxa Messi uu barbaray rikoorka goolasha oo Maradona uu ka dhaliyay koobka adduunka 8 gool ayuu Maradona ka dhaliyay wakaasi Messina 8 gool ayuu sidaasi ninkana ku maraya inuu ka dhaliyo koob adduunka 8 gool ayuu si maraya ninkana walla wakaasiyo wakacsan yahay oo waxa uu ka kala dhaliyay 4 gool oo sanadkii 2014 kacsan uu dhaliyay iyo 2 gool imka sii marayo iyo gool 2010 iyo 2000 uu kala dhaliyay 6 runtii 2018 gool uu dhaliyay intaasi 8daasi gool ayuu koob adduunka dhaliyay Maradona runtii haliyay isaguna Argentina isaguna 8 ayuu ka dhaliyay xitaa rikoorka Ronaldo ee goolasha inkastoo Ronaldo kulanka horno barbariya haddana 2 nin waa isdaba socdaan oo caawina mar kale ay rikoordooda ay barbareeyeen Messi 8 Ronaldo 8 ay World Cup-ka ay ka kala dheeragani waa iswada daba socda xitaa labadan gool ee Mbappe oo caawa dhaliyay isagaba waxa weyn ay uga dhignay rikoord weyn ayuu gaaray Harry rikoorka World Cup-ku ka dhaliyay goolashu ka dhaliyay ay saasi ku barbareeyay saasi ku dhaaf waajibiyba marna waa barbareey marna waa jibiyay oo waa dhaafay goolkii labaad markii uu dhaliyay runtii Mbappe saasi 7 gool ayuu ku maray imka World Cup-ka isagoo waliba 2 World Cup kaliya ciyaar 2018 iyo 2022 imka oo ciyaaray ay saasi turtaba ku maraya inuu Henry uu dhaafo rikoorkiisa Henry 6 buu ka dhaliyay 4 World Cup-na waa ciyaaray runtii waxa weyn ayuu uga dhignay laftigiisaba wiilka yar waa caawa oo 2 gool dhaliyo turtaba World Cup-ka 3 uu sii maraya Messi laftigiisa 2 ayuu sii marayayo odaygu sanadka waaba kacsan yahay xulkiisi waa wada oo goolku caawa dhaliyayna gool lagu ma tilmaami karo gool qurux badan ciyaartii weynna caawa kale ayaa loo baahan yahay in xulkiisu badbaadiyo ciyaartii weyn caawa kale ayaa loo baahan yahay runtii Ronaldo ayaa dalab waaliya helay inkastoo dhawaan ninkani in xulkiisu ay kooxda Manchester United ay iska eriday oo ay shaacisay in heshiiskiisa ay ka sii haddana waxa lagu soo warramay imika ay wargeysyada waaweyn ay qorayaan in dalab weyn ninkani uu helay waliba kale halkaas Saudi Arabia kooxda Al Nassr ayaa runtii dalab uu qiimaan caadi ahayn sanadkii ku qaadanayo waliba heshiis 3 sano ay rabtaa 225 milyan uu ku qaadanayo runtii kooxo weyn ba laftigeedba xiiseynaya qaaradda Yurub oo Chelsea Newcastle iyo waliba Inter Milan waxay ka warqabnaa imika xiisoodii hoos u dhigeen kooxda Al Nassr ayuu dalab ka helaya Saudiina dalab hore oo weyn ayuu ka helay inkastoo iska diiday Ronaldo waxa uu rabaa inuu waliba ka sii ciyaaro heerka sareysa oo waliba tartanka loogu xiisaha iyo xamaasada badan yahay ee tartanka horyaalada ee champion ay doonayaan inuu ka sii ciyaaro mar raba inuu xilligaasi oo Arab iyo meelaha soo tago inkastoo Mareykanka laga doonayo Yurub laakiin xiisaha kuwaasi waa gaabis Al Nassr bayna shacsiin doonayso ninkan waliba dalab intaas leeg ayuu hayso runtii wakaasi dalab ayuu helay ninkii Ronaldo ahaa Neymar ayaa sawiraantii laga soo qaaday kadib dhaawacii soo gaaray kulankii Serbia waxay muujinaysaa in dhaawac anqa uu ka soo gaaray dhaawac uu halis u ahaa runtii intii yarayd kulanku ciyaaray uu bararkaasi keenay iyadoo saacada kadibna maxaad u maneyn kartaa lugtiisaasi noqotay bararka intaas leeg ayaa lugtii fuulay ninkani dhaawaciisana runtii Neymar dhaawaciisina dhaawac halis u yahay ayaa la dareemaya kadib waa kaas sawir laga soo qaaday waxay walaac ku sii abuurayaan sawiradani in oo walaac ku sii abuuro xidigaha waliba walaac ku sii abuuro xulka Brazil runtii ninkan oo rajo weyn ka qabeen waa kuwaasi dhaawac inta leeg inkastoo isagu shaaciyay inuu doonayo in uu soo laabto wax walba uu sameeyo sidii
uu soo laaban lahaa haddana dhaawaciisa waxaa muujinaya in dhaawac weyn uu yahay. Manchester United-na waxay diidaysaa bedelka Ronaldo oo ay dhawaan shaacisay inay kooxda ay ka riday runtii waxaana aad loo saadaalinayaa oo leeyahayba kooxdani waxay doonaysaa in bedelka Ronaldo ay ka dhigto xidigana xulka Netherlands ku cadareynaya iyo waliba kooxda PSV ee sanadkan goolasha faraha badan fardhinaya ee Gakpo waxa leeyahay liiskeeda ninkani ay ku darsatay ba kooxdan iyo waxay doonaysaa in ay ninkan ay ku bedesho Cristiano Ronaldo runtii Gakpo duutaba 2 gool ayuu sii marayaa PSV goolashu dhaliyaan ka warqabnaa inkastoo ninkan ay kooxo fara badan ay wada xiiseynayaan PSG ha noqoto Manchester United iyo waliba Liverpool kooxaha imika qaardugooda waaweyn waa wada xiiseynaya ninka marka laga kaaliyo Haaland waa ninka kareemka oo goolasho badan leh goolashu saameynta ku leeyahayna lagama sheekeyn karo kulmo waaweyn ayaa maalinka bariya jira oo iyaguna la ciyaari doona runtii koob adduunka runtii waxaa laga yaabaa in ayna aragno xulal waaweyn oo kaari kariya amaba xulal kale oo qeer sii gari kara runtii kulanka weyn ee lagu sugay waxa weeye kulanka Spain iyo waliba Germany waxaan ka warqabnaa in Japan uu soo jabsaday Spain ay maganis wajahayaan oo iyaguna Costa Rica 7 kusoo dhuftay Japan waxa xitaa la fursad haysta caawin bixi karo oo labadan xul madaxa isku galiyo kooda soo roonaadun isaguna ay bixi karaan Japan kooda in duhurnimo ay soo dhici doona kulankani kooda duhurnimo hadii ay badiyaan waxay haystaan fursad bixi karaan waayo Germany way soo garaaceen 3 dhibcood bay haystaan Costa Rica hadii ugu daraan 6 dhibcood ay siyaasay ku tagi karaan fursad weyn bay haystaan Spain iyo waliba Germany waa kulan weyn oo indhaha lagu wada hayo Germany hadii gool dare kale ay ugu darsanto waa ku daayeen saasi waa ku hareen wana World Cup-kii labaad bay noqon doontaa ee gruubida ay ku harayaan World Cup-kii 2018 bay gruubida ku soo hareen kana oo u baahantiin xari karaan wala Spain iyo Germany waxba kala qabsan doona in Britole Croatia waliba Canada ayaguna foodo istardo Canada lama yareysan karo waxaan ogeyn waxay ay ku soo dhigtay xulki waxay ku soo dhigtay baan ogeyn Belgium-ka runtii Croatia iyo waliba Canada waa kula weyn Belgium-ka iyo waliba Morocco kuna waxay ay iyaguna ku daafacanayaan in runtii ay gruubidooda ay ka soo bixi karaan kulmadan Britole ciyaaraya Spain iyo 3 bay haystaa Japan iyo 3 waana idil Japan waxay fursad weyn haysteen bixi karto Belgium waa gruubkan kaligiis isaga ayaa kala 3 dhibcood Canada isagu waa soo garaaco waxa ay malaha halka Croatia Morocco ay labadii saddexaad kula jiraan min hal dhibic ay wiileen kadib barbarihii ay kulankooda ku soo idlaaday runtii groupkana wax weyn baa kala cadaan doona Belgium-ka hadii uu garaaco Morocco laftigiisu waa isaguna waxa noqon doona xulkii kale ee ka bixi karaya kulmadani waa weyn baaji laakiin waxa indhaha lagu wada hayaa waa Germany iyo waliba Spain kulankani weyn ee jira wararkeena ciyaar wanaagta saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum